Isuduwaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad isla markaana ka tirsan gudida qabanqaabada xuska 18 May oo waraysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa ugu horeyn ka warbixiyay halka ay marayso qabanqaabada diyaar garowga xuska 18 May waxaana Isuduwuhu baaq culus u diray dhalinyarada gobolka Saraar. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa TV-ga caalamiga ee Star TV iyo howlwadeennadiisa ama wariyaasha gobolka u jooga oo ah runtii dhalinyarada firfircoon. waxaan maanta fursadan ayna siisay Star TV uga faa'iideysanaya anigoo ah Isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha isla markaana kamid ah gudida uu barasaabka gobolka Saraar u magacaabay qabanqaabada 18 May una qaabilsan madaxa abaabulka iyo wacyigelinta bulshada gobolka Saraar. guud ahaan sidaan la wada socono 18 May foodeen ugu soo haysaa iyadoo waqtigeedii hore looga soo mariyay maadaama ay 18 May ku beegantay waqti Ramadaan isla markaana maalin Jimcaha ku beegantay sidaa darteed waxa laga dhigay 15 May waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa guud ahaan bulshada gobolka Saraar mucaarad iyo muxaafad cid doonto haato maalintan waa maalin la wada leeyahay waa maalin qaran guud ahaan tiimba inaas u diyaar garowdaan maalintaas waa maalin qaali nagu ah. waxaa si gaar ah uga faa'iideysanaya oo aan baaq ugu diraya dhammaan dhalinyarada iyo bahda ciyaaraha gobolka Saraar todobada degmada gudoomiyaasha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmooyinka gobolka Saraar kamida ee todobada degmada waxaan farayaa inay u diyaar garoobaan diyaarsadaan calamaantoodii iyo boorarkoodii oo ismuujiyaan maalintaas. geesta kale telefishinka Star oo wax ka weydiiyay Isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar halka uu ku dambeeyay dhagax dhigii garoonka weyn ee magaalada Caynaba Hersigani Stadium kaas oo dhagax dhigtay dhismihiisa dawladda Siilaanyo iyo waliba dawladda haatan jirta ee Muuse Biixi ayaa waxa uu ku jawaabay haddaan u imaado su'aashaad weydiisay ah garoonka kubadda cagta gobolka Saraar ee qabyada ah muddadii u dambeysay runtii waa xaqiiqo iyo taasi garoonka waxa dhagax dhigay 2015 bishii saddexaad madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo nasiib darro uma suura gelin inuu garoonkaasi dhismo intuu xukuumaddaasi jirtay hase yeeshee intuu madaxweynaha imika talada haya Muuse Biixi Cabdi talada ololaha ku jiray laba jeer oo gobolka Saraar soo booqday labada jeerba uu la kulmay dhalinyarada gobolka Saraar hortoodana ayuu ka ballan qaaday inuu xukuumaddiisu haddii ku guuleysto dhisi doonto. waxa alxamdulilaahi rabbil caalamiin inay maanta xukuumaddiisii ay talada hayso oo ay dhalinyarada gobolka Saraarna ahaayeen qaybtii ugu weyneyd ee codka bixisay gobolka Saraar ee dooratay. waxa nasiib daraa in miisaaniyadii imika 2018 uu ka hadhay garoonkii laga reebay garoonkaas madaxweynaha runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqadiisa uu wataa shaqo hawl adag buu hayaa hase yeeshee wuxuu u baahan yahay xasuusin buu u baahnaa kaliya maadaama dhalinyarada uga ballan qaaday hortooda uga ballan qaaday waxaana aad uga xumaanay ama dhalinyarada gobolka Saraar guud ahaanteeda aad uga xumaatay in garoonkii laga reebay miisaaniyadii sanadka 2018 iyadoo haddana ay garoomo hore loo dhisay oo dhisan oo ilaa dhismihii iyo roogiiba la dhisay ay haddana ugu jirto miisaaniyadda fidin taas waxay ku tusaysaa in miisaaniyaddu aanay ku iman baahiyaadka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee cid kastaaba intay u tagto wasiirka maaliyadda ayadu baahideeda ku darsatay waayo haddii wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ciyaaraha la soo marin lahaa waxay noqon lahayd in garoomada la dhisay ee dhismahoodii iyo waxoodiba u dhan yihiin aan maanta fidinta miisaaniyadda loogu darin halka garoomadii la dhisay qaarkood 100 fidin ay ugu jirto ragna waxay laayeen ama dhalinyarada gobolka Saraarna waxay laayeen garoon geed ku wareegsayo taarabuun leh roog baa iska joogay ayay wali sugayaan oo laba madaxweyne u ballan qaaday midna dhagax dhigay midna u ballan qaaday runtii taasina waa nasiib darro hase yeeshee dhalinyarada gobolka Saraar waxaan leenahay dadaalo badan baa wadnaa oo hadday tahay wasaaradda agaasimiga guud wasiirka ciyaaruhu waa ka yimi sanadkan 2 bilood ka bacdi waxa yimi agaasimiga guud ee cusba dadaalo badan baan ugu jirnaa sidoo garoonkaasi hadduu miisaaniyadii ka hadhay aan uga hadhi lahayn sanadkan in haddana la dhiso oo ay hadday tahay sanduuqan maxaa la yiraahdaa 2% gobolada bari loo dhiso ama ha laga dhiso ama meelo kale ha laga dhisay inuu 2018 uu dhismo insha Allah inay saa ku samraan كل ترتنادينا ويسكا سعودانو 18 May insha Allah mid baan qaban doona bisha Ramadaanna uu ku xiga hadii alla ka dhigo oo kii Ramadaantana waan ugu tala galay anagoo si volunteer aan cidna inaga caawinay inaan si volunteer hadana aan ugu qabano dhalinyarada si loo mashquuliyo dhalinyarada. Cabdirasaaq Aadan Cabdille Star TV Caynaba.